halkani waa BBC London oo aad ka dhageysataan mawjadaha gaagaaban FM-da bariga Afrika iyo barta internetka ee bbcsomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Jimco ah oo ay taariikhdu tahay 27 bisha Abriil 2012. waxyaabaha aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa kamid ah maxkamadda dambiyada adduunka oo dambi ku heshay Charles Taylor, waa madaxweynihii hore ee Liberia. saameyn intee la eg ayay arrintani Soomaaliya ku yeelan kartaa? ninkan wuxuu sameeyay sabab siyaasi ah uu qabtay ku sameeyay marka Soomaaliya laga dhigo ama nin lagu dilay ama qof gacan laga gooyay ayadoo maxkamadii la saaray bay caday. iyo dhalinyaro qalab cusub ku sameeyay dalka Mareykanka, maxay qalabkani ugu talagaleen? afkeena hooyo sidii loo bari lahaa caruurta soo koraysa in aan u sameeyno iyo barnaamijyada diiniga ah oo khaasatan ay u baahan yihiin dadka qurbaha ku nool wadanka. iyo waliba dadka Soomaalida ee ku nool wadamada qurbaha ah waxaa la sheegay inay dhibaato badan kala kulmaan sidii ay ubadkooda u bari lahaayeen afka Soomaaliga ah. wadanka Mareykanka ayaa dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka sameeyeen qalab casri ah oo kombiyuutarka u hagaya oo u sahlaya inay dadka waaweyn iyo caruurtaba kala socdaan barnaamijyo afka Soomaaliga cashiro ah iyo waxyaabaha ka dhacaya wadanka intaba. Liibaan Xaaji Cabdullaahi waa madaxa shirkadda qalabka isgaarsiinta ee Global Box System. Maxamed Xaaji Xuseen ayaa wareystay, waxa uuna marka hore weydiiyay bal inuu ka warramo waxa uu yahay qalabkani cusub ee Global Box System. Global Box waa aalad receiver ah oo ku xiran dhanka internetka aan ku xiran ka dhig TV-gaaga weyn kuna suurtagelinaya in aad daawatid telefisyono, raadiyaal, casharo, educational programs adigoo isticmaalaya TV-gaaga weyn iyo remote-kiisa. marka waxa weeyaan meeqa television buu ka kooban yahay ama meeqa radio? ilaa iyo hadda wuxuu ka kooban yahay 320 channel iyo video iyo radio ah. maalin kasta iyo isbuuc kastana waxa ku soo kordha channel hor leh. wuxuu u sameeysan yahay waxa la yiraahdo open source system oo anyone channel haduu rabo ama radio haduu rabo uu ku soo darsan karo. channelada ku jira iyo programmada ku jirana waa programo loogu talagalay community-ga ama dadka qurba joogta ah oo u baahan wadankoodii hooyo programmadooda ama afkooda hooyo TV-yadii ama raadiyadii ku baxay inay kala socdaan. marka xagga Soomaaliga yaanu gudbaynaa hadii magaranaysa intaas oo channel uu ka kooban yahay. Soomaaliga meeqa channel baa ku jira? Soomaalida waxa ku jira channelado inta TV oo waaweyn oo hadda jira. adiga inta channel oo caalamiya oo TV oo satellite-yada ka baxa waxa inta kale oo dheer inay dadku ay ka dhageysan karaan idaacadaha sida BBC-da afkeeda hooyo oo afka Soomaaliga ah afarta war ay soo deyso. waxa kale oo inta u dheer programmada localka ah oo telefisyonaadka Soomaalida ay community-yaasha qurba joogtay asaastay. TV-ga ku yaal Ottawa iyo Toronto, TV-yada ku yaal magaalada Minneapolis, Minnesota, kuwa ku yaal Seattle, Ohio oo aan isku talagalno in aan soo ururino si dadka meel kasta ay joogaan internet haday haystaan ay u suurto gasho inay dhageystaan ama daawadaan. marka xafiiskan baad marka hore ku sameeysan oo programka halkan laga sii daaya? programka waxa laga sii daayaa xafiiskeena. waxaan asaasnay qalabkeena uu noo yaala. waxa kale oo jira studio gooniyo anagoo aan u asaasnay programmada loo baahan yahay oo aad iyo aad ugu yar ummadda Soomaaliyeed sida afkeena hooyo sidii loo bari lahaa caruurta soo koraysa in aan u sameeyno iyo barnaamijyada diiniga ah oo khaasatan ay u baahan yihiin dadka qurbaha ku nool wadanka. marka qurbuhu waxay u baahan yihiin afka Soomaaliga caruurta in la baro. Soomaaliga sideed u bartaan Soomaaliga? Soomaaliga waxaan u barnaa hab casriyeysan oo la isticmaalayo computer software. computerkaas oo for example hadda markii loo sharaxay caruurtan wadanka ku kortay qof Soomaali haduu meel soo istaago yiraahdo qalin waa ku adag tahay soo u fahmo. laakiin waxaan isku daynaa luqadda Ingiriiska oo badankood u bilaaban qalinkii oo pen ku qoran iyo sawirkii oo qalinkiya
iyo hingaadiyo af Soomaaliya oo qalin loogu dhawaaqayo si aan ugu jilcino maadaama carruurta halkan wadamadan ku koraysa ama ku dhalatay ay yihiin dhanka Ingiriiska ama luqadaha ajnabiga kaleba ka horbarta ama aadka u yaqaan marka luqadii af Ingiriisiga ahayd iyo luqadii af Soomaaliga ayaan isdhinac dhignaa iyo iyadoo sawir leh waxaan kaloo jira isagana barnaamijyo kale oo diiniya sida maaragtay barnaamijyada su'aalaha iyo jawaabaha oo khayr Allah siiyo shuyuukhda magaalada Minneapolis ay nagala qayb qaadato barnaamijyadaas oo isbuucla ah system kan global box waxa uu ku fiican yahay waa qalab meel kasta aad ula guuri kartid uma baahna dish ama satellite uma baahna inaad computer wax ka taqaanid ama xirxiritaan adag adigu un baa xiran kara TV-gaaga weynna marka ku xiratid sidii cable-ka ama receiver-ka oo kale remote-kiisa ayaad channelada ka control-aysa ka kala bedelanaysa liibaan xaaji cabdullaahi